ballankaad waahigo shartugu hagoogane ciidaad waa hodan cakuha qabeeshe waa leeladiino horweynku imaano cakuhiyanayse haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكاني وعبد الرشيد استوديو وإديسو قدبينيا وراركيو قوبان وراركا نغسو غاريا صومالي ايا وحي شيغي يعني إنو هلاي روب لحاد له اي قدر سدين داد اي الدنيابا وراركا لأونا سو غاريا ايا وحي شيغي يعني إن أرددي دميستي معدكا حنانada xoolaha loo diray tababar ay ku soo qaadan doonaan dhammaan waddanka Soomaaliya halkaas oo ay uga faa'iideyn doonaan waxa ay soo barteen ummadda Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ah sidoo kale macadka badda ayaa assalaamu calaykum aabayo hooyo wa calaykum assalaam wiilkayga yafraxow aabe maanta raadiyaha muxuu sheegay aabe barwaaqo iyo dhulkii oo daaqsin noqday roobna lagu dogsaday ardadiina way dhaqaaqeen oo waxtar bay la yimaadeen oo ummadoodii ayay caawinayaan alxamdulilah ilaah baa mahad leh oo dhulkii nabadii barwaaqo ka dhigay soo dhawow wiilkaygiyow oo fadhiiso maxaa adigu haysaa aabba reerkiiyo roob helay xoolihii oo dareeray ubadkiiyo wax baranaya ayaa nabad oga soo tegay maasha allah aabbo waxaan rabay inaan ku weydiiyey 3 shay oo muhiim ah inaan wax ka ogaado oo wiilkaygiiyo maxay ahaayeen aabbo horta waan kaa xoolo badanahay haddana xoolahaaga ayaa iga nacfi badan xag muuqaal hilib iyo caanaba oo aabbo garta si wanaagsan ayaan u gon karaa haddana gartaada iyo ra'yigaaga ayay ummaddu qaadataa tan kale aabbe waan kaa xaas qurxoonahay haddana xaaskaaga iyo ubadkaaga ayaa meel walba ammaantoodu taallaa oo aabba sidee wax u jiraan maasha allah wiilkaygiyo aabba midda hore waa runoo xoolahayga waa kaataya wanaagsan yihiin sababtoo ah adigu meesha uu roobku ka da'o durba xoolihii iyo reerkii baad u rartaa adigoo aanan soo sahmin balse aniga inta aanan u rarin reerka ayaan soo sahmiyaa goobta uu roobku ka da'ay soona ogaadaa inay u wanaagsan tahay xoolaha iyo reerkaba ku darsoo haddii uu roobku meel ka da'o durba lama dego oo waa la yara sugaa inta cawska iyo naqu soo baxayaan si ay xooluhu daaqsin uga helaan aabba sidaasaan yeelaayo xoolahaygii nafci u yeeshaan aabe run baad sheegtay oo durba reerka ayaan u raraa goobta wiilkaygiiow kolku raggu isku yimaadaan inay xaliyaan xaajiya gar waxaad adigu wiilkaygiioo samaysaa adigoon wax lagu weydiin ayaad markiiba la soo boodaa ama aad ka hadashaa sida loo xalin lahaa gartii ama xaajadii loo fadhiyey ku darsoo wiilkaygiiow si wanaagsan ayaad uga hadashaa balse anigu ma hadlo ilaa ay ragga meesha joogaan iyo odayaasha ay weydiiyaan sida aniga ila tahay xaajadu odayaasha meesha joogana si wanaagsan ayay ii dhageystaan oo way iga aqbalaan garta sida aan u gooyey aabe run baad sheegtay wallaahi midda saddexaad wiilkaygiiow waan kaa xaas wanaagsanahay oo waad aragtaa hooyada dhaqankeeda wanaagsan anigu wiilkaygiiow qurux ma raadsada ee waxaan raadsadaa qofka nolosha ila wadaagayso wanaageeda iyo reerka ay ka soo jeedo fac ka fac inay yihiin reer dhaqan leh balse adigu qurux baad raadisaayo uma fiirisid dhaqan iyo wanaagga ay leeyihiin
waan gartay aabe si wanaagsan baan kaaga faa'iidaystay waa dhaqan aad u wanaagsan marka abo iyo hooyo waan sii soconayaa insha allah reerkii baan sii aadayaa caruurtii dhammaanna way idinku wada salaami doonaa hadduu ilaahay yiraahdo hooyo iyo aabe kheyr baan isku ognaa insha allah waa inoo mar kale hadduu ilaahay yiraahdo مدك بيو هاي صدانو برتمها وبيار القرية والوغدا بالكولا وبريني وايو